waxaan u yeedhayaa Axmed Abakar Maxamed agaasimaha guud ee maalgashiga nin dhalinyaro wasaaraddan dadkii loogu yimi aha oo dhalinyaro badan markuu Axmed Abakar DG-ga noqday ayay hanka u taageereen oo wada DG ba noqona maanta laakiin wuxuu la hadlayaa dhalinyaradii wada agaasimo waaxeedya agaasimayaal guud maareeyaan iyo wasiirana way ku soo xigi doonaan bismillahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahad leh waa xaflad runtii aad iyo aad u qurux badan waxaan u mahadnaqayaa ugu horreyn markaa ciddii xafladdan soo qaban qaabisay oo runtii aan dareemayo shaqada badan iyo culayska fara badan ay geliyeen hadday yihiin markaa ciidamada amniga ee wasaaradda iyo hadday yihiin markaa shaqaalaha kale wasaaradda ka shaqeeya gaar ahaan nimco ayaan halkan uga mahadnaqayaa oo ka mas-uula howlkan markii ugu dambeysay hadda laga bedelin agaasimo waxiid baa laga dhigay iyadana talo ya bedel baa dhacay waay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta marti sharafta kale maareeyay TV-ga qarankii hore agaasimaha cusub ee TV-ga maareeyay ku-xigeenkii TV-ga iyo dhammaan madaxda kale faraha badan halkan fadhida runtii aad iyo aad baan u salaamayaa marti sharafta wasaaradda warfaafinta anigu runtii meel gaar ah igaga taalaa ujeeddaduna waxa weeyaan waxa meel gaar ah igaga yeelaysiiyey waxa weeyaan muddo kooban baan joogay ilaa 7 bilood 6 bilood meelahaas ahayd baan malaynayaa 6 biloodaan joogay maalintii wasaaradda warfaafinta imanayay halkana waa idinka sheegay runtii waxaa lagu yidhi meeshan habaaran ee kadeedan maxaa ee lagu soo magacaabay ma habaar baad qabtaa baa lagu yidhi haddana markii aan imid 7 bilood oo wasaaradda warfaafinta joogay runtii qalbigayga waxay ku reebtay markaa raad fara badan shaqaale daacada shaqaale xirfad leh shaqaalaha shaqaday qabanayaan anigoo runtii aan aad iyo aad ula yaabay runtii oo idaacadda soo geliya subaxii 6 barhka gurigooda ka soo baxaya 5 ama 4 barhka habeenkiina halka ka rawaxaya markaa 1 habeenimo ama 2 habeenimo mararka qaar markii barnaamijyada abaaruhu socdaan live-ka lagu jiro 3 habeenimo waxaan ka rawixi jirnay iyadoo weliba hablana la joogaan qaarkood markaa waalidiin iyo carruur ay ka yimaadeen waad garan karaysaa markaa sacrifice-ka iyo shaqada intaa la eegay dadaalkii kartida ku jirta runtii waxaa kale runtii wasaaradda sida dhaqanka Axmed Salabaan iyo ciidankaas nagala joogaan runtii iyaguna shaqo fiican bay runtii qabtaan waxaa barnaamijka laga sii daynayay TV-ga dadka runtii qabtay wayaan iyo idaacadahaba haddaan u soo noqday xil wareejinta waxaan runtii u mahadnaqayaa markaa shaqaalaha wasaaradda oo dhan baan runtii u mahadnaqayaa si guud si gaara shaqaalaha TV-ga qaranka shaqaday qaranka u hayaan baan ugu mahadnaqayaa si gaara waxaan sii dul taagayaa markaa maareeyaha sii tegaya ee Qadar Maxamed Cakule iyo ku-xigeenkiisa markaa Maxamuud Cadaani Qadar Cakule anu markii halkan imi runtii dadkii sida gaarka ah ila shaqeeyey ee wasaaradda maamulkeedii nidaamkeeda runtii baray buu ka mid ahaa runtii waxaan aaminsanahay Qadar Cakule dadkoo dhanna runtii aaminsan inuu ka mid yahay markaa hantida qaranka uu leeyahay markaa runtii waxa weeyaan shakhsi marka la yiraahdo uu ka weeyay Qadar Cakule aniga say la tahay waxa weeyaan nin talented ah oo Ilaahay hiba siiyey inuu qarankeenan ka dhashay iyo inuu wasaaradda warfaafinta ka tirsan yahay inaan la soo shaqeeyay runtii anigu si gaar ah runtii farxadii gelinaysaa waana wax qof kasta runtii ugu mahadnaqayaan Qadar waxaa leeyahay runtii maanta uu dalacay wuxuu noqday maareeyay hore TV-ga qaranku noqday intaas runtii isaga wuxuu noqonaysaa dalacad runtii warbaahinta iyo waxbarashada runtii laba mid bay isaga mid yihiin oo macallinkuna ama wasiir ha noqdo ama meel kasta ha tagay macallin buu noqdaa tawaashirta ku soo noqdaa wariyuuna ama madax ha noqdo wasiir ha noqdo ama maareey ha noqdee Qadarow kamaradii iyo mikrofoonka ka tagi baan ku leeyahay qaranka u shaqee abaari waliba si gaar ah uga shaqee Muuse Faarax Jambirna oo soo dhaweynayaa anu de lama soo shaqeey laakiin isla la sheegay waa nin isna runtii karti badan aad iyo aad baan ugu duceynayaa inuu Ilaahay xilka u fududeeyo midna wasaaradda warfaafinta oo dhan anigu bulshada waxa weeyaan marka suuqa la joogo waxyaalo badan baa la yiraahdaa ninka la yiraahdo Sooraan ee kafta ka badan leh majaajilaysta maalidu wuxuu yiri riwaayad rumitali siyaasaddu marna high bay tagtaa buu yiri marna low bay tagtaa marka wasaaradda warfaafintu marna high bay tagtaa marna low bay tagtaa micnaheedu ma aha in la kala tagay anu intaa ku aqaanay wasaaradda warfaafintu dad isjecel oo walaalo ah oo runtii aad iyo aad isugu ooyahay anu intaa la joogay sidii baan rajeynaya inay yihiin shaqada qarankuna kulay la wada shaqeeyo gacmo la isqabtay ku wanaagsan tahay
madaxdii hore iyo madaxda cusubna waxaan ka codsanay inay si wanaagsan wada shaqeeyaan agaasimaha guud iyo wasiirka iyo wasaaraddii wasiir ku-xigeenkana mas-uuliyad gaara waa saaran waxaan kula talinayaa inay markaa isu soo dhaweeyaan markaa shaqaalaha ay maamulaan iyagoo mararka qaar welibana xeer jajabna ku daraya oo sharciga ka yara gabanaya aad iyo aad baa mahadsantihiin dad fara badan halkan fadhiyana magacooda xuseen deeqsi iyo rag kaloo fara badan iyay ka mid yihiin markaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu